guushu ma ahan wax sidii dabayshii mar iyo laba ku soo mara oo aad oksijiin ahaan u qaadanaysid, mana aha bidhaan cadceedeed maalin kuu soo baxda, laakiin waa miro dhadhan macaan oo dheef suuban, kuwaasoo ku waran xero xayndaab adag. xeradaasi waxaa ilaala ka haya waxa aan u naqaano caqabadaha. waardiyayaashaasi ninna gudagalka xerada iyo gurashada miraha cadroon uguma fasaxaan haybgarasho iyo itaal muuqeed toona, balse waxaa gudaha u dhaafa oo keliya ninkii la yimaada fal kasta oo ay tixgeliyaan, niyad sami muuq walba oo ay u riyaaqaan, caqli arag walba oo ay la dhacaan, iyo oraah dhawaq walba oo soo jiita. waxaad ku dhex nooshahay qarni nolosha adduunyo lagu jaangooyo maado. bal eeg, haddaad sabool tahay ama aadan ahayn guulayste magac leh, waxaad arki doontaa inaysan cidna dhowri doonin shakhsiyaddaada iyo qof ahaantaadaba, balse haddaad tahay shakhsi hanti u saaxiiba ama magac iyo xirfad ku suman, waxaad arki doontaa iyada oo ay dadku kuu sacabinayaan kuuna adeegayaan. bal adiguba garadaawade sirta ku jirta guushii Michael Jordan oo ahaa shakhsigii ugu xariifsanaa ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Maraykanka. wuxuu mushaar ahaan u qaadan jiray sanadkiiba in ka badan 15 milyan oo dollar. ma kula tahay inuu ku gaaray heerkaas meel fadhi? Michael Jordan wuxuu yidhi, in badan ayaan ku fashilmay socdaalkii noloshayda, taasina waa sababta aan u guulaystay. bal eeg sidoo kale Mo Farah waa shakhsi ku soo caanbaxay ciyaaraha orodada kuna guulaystay bilado badan. waana nin nolosha ka soo bilaabay meel hoose ilaa uu ka gaaray darajo sare, wuxuuna noqday xidig sharaf weyn u soo jiiday dalka Ingiriiska. balse adiga iyo Mo Farah maxaad ku kala duwan tihiin? ma isleedahay meel fadhi ama xagla laaban ayuu ku gaaray guusha? ma waxay kula tahay in guushu ay iska timaado iyada oo aan loo halgamin? adduunyadan aad ku dhex nooshahay waa adduunyo ku dhisan socod, wax walba waxay ku jiraan hannaan socod dheer, waxayna la socdaan waqtiga. Axmed Shawqi wuxuu leeyahay xikmad aad u muhiim ah, taasoo ah himiladaada laguma gaaro rajo, balse waa loo halgamaa. waxaa hubaal ah in qof walba oo guul raadiye ah la gudboon tahay inuu la yimaado tognaan aragtiyeed, dulqaad iyo dadaal dheeri ah si aad u gaartid yoolkaaga. waxaa kula gudboon inaad ka dheeraatid tognaan aragtiyeed iyo qof walba oo aaminsan ka walwalka guuldarraysiga, iyo inaad ka sadcaashid cimilada guuldarrada kuugu bajinaysa. ma dhacdo qof niyad xun oo tagtadiisii hore ee xumayd ku mashquulsanay inuu guulaysto. qoraaga la yidhaahdo Ibraahim Al-Fiqi ayaa buugaag uu qoray, waxaa ka mid ah buug uu ugu magacdaray fikirka wanaagsan. wuxuuna qaybo ka mid ah buuggiisa uu ku soo qaatay qiso yar oo dhex martay 2 wiil oo dhallinyaro ah oo meel ka wada shaqaynayay, waxaana la kala oran jiray Munjim iyo Samiir. labadan dhallinyarada ah muddo markii ay meel ka wada shaqaynayeen ayaa waxaa dhacday in shirkaddii ay u wada shaqaynayeen maamulkeedii ay u yeeraan, waxaana lagu yidhi shaqadiinii waan ka maarannay, waadna fasaxan tihiin. markii ay shirkaddii arrintan labadii dhallinyarada ahayd u sheegtay, aad bay u walaaceen. mid ka mid ah dhallinyaradii ayaa wuxuu yidhi, haddii shirkaddani shaqadii ay naga cayrisay, bariba haddii alla idmo shaqo kale ayaan helaynaa sidii aan tan u helnayba ee aan raadsanno. halka kii kalena uu yidhi, may, sheekadu sidan ma ahan, meeshan shaqo lagama heli karo, maxaa yeelay in shaqo laga raadsado aad bay u adag tahay oo shaqooyinku way wada buuxaan, cidina qaadanaysana ma jirto. nimanka maamulka shirkaddan ka ahna way ina dulmiyeen. halkaasuu ka galay sheekadii. nimankii dhallinyarada ahaa way kala tegeen. kii dhinaca fiican wax ka eegayey markiiba shaquu raadsaday oo uu howlgalay. meelo badan ayuu codsiyo shaqo u qortay. wuxuu muddo raadinayeyba wuxuu shaqo ka helay bangi. wuxuu shaqadaasi bangiga wadana wuxuu noqday mid dallaca oo kor uga sii socda shaqadiisii hore, ilaa uu ka noqday maamulaha farac ka mid ah faracyadii ama laamihii bangiga. wiilkii kale wuxuu ku dambeeyey walaac iyo walbahaar iyo in maalin kasta uu ku celceliyo, waa la ii dulmiyey, si khaldan ayaa shaqadii la iiga eriyey, ilaa ay noloshii ku noqotay mugdi. wuxuuna waayey shaqo, waxaa ku yaraatay hurdadii, wuxuuna noqday qof isku buuqa ama uu ku dhaco xanuunka loo yaqaano stresska. adiguba waad garowsan kartaa daawade dulucda sheekadan iyo farqiga u dhexeeya labadan qof ee midna uu eegay dhinaca suuban, iftiinkuna ka xigo, midna uu lugaha iska dabray, caafimaadkiisii iyo waqtigiisiina uu ku seegay ku celcelinta oraahyo qoomamayn iyo walbahaar ah oo waqtigoodii laga soo gudbay. Edmund Hillary wuxuu dhashay 1919. wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee gaara cirifka ugu sareeya buurta dunida ugu dheer ee Mount Everest oo dhererkeedu ka sareeyo 9 kiilomitir joogga badda. isku daygiisii ugu horeeyey ee uu ku doonayey koridda fiinta sare ee buurtan wuxuu ku soo idlaaday guuldarro, laakiin Hillary markii uu noqday isku daygiisu mid dhicisoobay
waxay dowladda Britain u samaysay xaflad si ay ugu abaalmariso iskudaygiisii. Markii loo yeeray xafladda si uu u dhaho hadalkiisii, ayuu markuu soo gaaray masraxa aad u eegay muuqaalka sawirka buurta, kaasi oo ku xardhanaa meesha ay ka dhacaysay xafladdu. Goortaasi ayuu yidhi Hillary odhahdiisii caan baxday ee ahayd, waad guulaysatay markan, adigu waad weynaatay intaad awooday, laakiin anigu waan weynaan doonaa ku celcelin badan kadib. sida taariikhda ku xusan 11 iyo bar subaxnimo 29 bishii shanaad 1953 waxay ahayd markii uu noqday Hillary qofkii ugu horeeyay ee korofiinta sare ee buurta adduunka ugu dheer, wuxuuna noqday mid lagu barto casharkiisii lama ilaawaanka ahaa iskoolada, jaamacadaha iyo goobaha waxbarasho ee adduunka. walow ay jecel yihiin dadka dul saaran adduunka guudkiisa dhadhanka guusha, haddana way dhib badan tahay u adkaysiga dacarta guuldarradu. waana hubaal sirta kala duwanaanshaha aadamaha inay tahay middaasi. mar walba oo uu marin soo xirmo, waa inaad xal u heshaa sidii aad u heli lahayd marin kale, kaasi oo kugu sugaya halkii aad hiigsanaysay, adiga oo aan dhimayn xawaarahaaga. dad badan ayay seetaysay tijaabada guuldarradu, kuwaasi waa kuwa guuldarraystayaasha dhabta ah. iyaga oo u dhow guusha ayay isku dhiibaan mawjadaha niyad-jabka markaasay wajahaan guuldarrada dhabta ah. ha isdhiibin, maxaa yeelay ma ogid inta uu ku jiro salaanka guushu. adigoo in badan saarnaa badaha dadaalka, yaysan ku curyaamin oo aysan sabab u noqon geerida yoolkaaga dad kale. qoraagii Masriga ahaa ee aan ku soo xusnay bilowgii muuqaalkeenna ayaa laga hayaa oraahyo waarto ah, kuwaasoo ah ku dabar noloshaada yoolal oo ha ku dabrin dadyow, maxaa yeelay dadku way tegayaan halka yoolashu ay weligood kuwa helinayaan. ogowna, haddii aadan isxasuusin maalin walba himilooyinkaaga, ugu dambayntii waxay isku beddeli doonaan rajo. rajaduna waxay calaamad u tahay qofka aan jamashada lahayn.